Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatuh. Waagii hore waxaa jiray gabar yar oo aad u qurux badan, mar walbana sidata garbasaar guduud. Dadkana waxay ugu yeeri jireen gabadhii garbasaar guduudneed. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa hooyadeeda ugu wacday, waxayna ku tiri gabadheeda ii kaalay. Gabadheedii waad ogtahay in ayada xanuunsan tahay, waxaan kaa doonayaa inaad u geyso saladan. Salada gudaheedna waxaa ku jira buskut iyo daawo direen ah ama mudaawaad sida u taqaanidba. Gabadhii waxay guda gashay inay istiyaariso. Hooyadeed waxay ku dhahday, gabadheedii waxaad martaa wadadii keenta ahayd oo mar walba la mari jiray, wadadii keenta bakaylaha. Gabadhiina hayee ku tiri waa ina soo baxday, iyadoo wadada kusii guda jirto faraxsan iska heesaysa ayaa hal mar isweydiisay maxaa wadadan loo bixiyay wadadii keenta bakaylaha. Inkastoo aan jeedin bakayle, waxayna aragtay intay wadada ku jirto wado oo labada dhinacba ubaxyo ugu soo baxeen oo aad u qurux badan. Waxayna go'aansatay inay ku laaxato wadadaas. Waxay istiri ubaxyadan u gur ayada sida uu faraxdo kadis uga dhig ama surprise. Iyadoo ku jirta aroorta ubaxyada waxaa lama filaan ah gabadhi u maqashay cod. Codkaasna ma aysan daneynin gabadha. Haddana waxaa yeeray dhawaq oo wuxuu ka soo yeeray dhanka geedaha. Hal mar waxaa ka soo baxday yey aad u halis ah, waxayna ku soo booday dhanka gabadha. Gabadhiina waxa ay bilowday inay ka sikato ayadoo aad u baqaysa. Hal mar waxaa ka dhacday saladiina, waxaana ka daatay wixii salada ku jiray buskudkii mudaawaadka. Yeydiina waxay bilaabatay inay arooriso wax ku jiray salada buskudka, waxayna go'aansatay inay siiso gabadha. Gabadhii iyadoo yaaban oo yeydii sidan sameynaysa ayay si tartiib ugu soo dhawaatay yeyga, waxayna ka qaadatay saladeeda. Waxayna ku dhahay mahadsanid. Waxa ku dhahay gabadhii inta u socotaa. Waxay ku tiri waxaan u socdaa keenta duurka oo degan ayadeeda meesha ugu dambeyso. Ayadeena waa ay xanuunsan tahay. Waxayna ku dhahday ayada ana u soo sheegay sii socoto. Waxay ku dhahday magacayga waxaa li dhahaa gabadhii garbasaar guduudneed, sidaas dadkana u yaqaanaan. Yeydii waxay dhahday ana hooy ayada u soo sheegay adna waxay si guro. Intoo hadalkaas dhimaysanin ayaa xasilma filaan ah dhawaq xabad ah ku yeeray. Yeydii waxay bilaastay tartiib ay meesha ugu laaxato ugu cararto. Gabadhii ayaa meesha ku soo hartay oo meesha ku luntay. Waxayna ka qoomanaanaysay oo ka shalaanaysay inay talada hooyadeeda qaadan weysay. Waxayna bilowday inay iska oyso. Iyadoo oynaysa ayaa meesha waxaa soo maray ninkii yeyda ugaarsanayay ama ninka ugaarsanaa. Wuxuu ku dhahay gabadhii halkan maxaa ka sameynaysaa, waayo keenta meesha aad soo martay waa meel halis ah, dhanka kale maxaad u mari weysay. Meeshan waxaa joogay aad u halis ah, adi ma aragtay yeyda. Gabadhii waxay ka qoomanaanaysay inay u sheegi weysay inay aragtay yeyda, ma aysan u sheegin. Waxa ay ku dhahday aniga waxaan u socday guriga ayayda, iyadoo la xanuunsana soo booqanayay. Anigoo booqinta halkaas ku jiro ayaa wadadii igu luntay. Sidaas ayay ku dhahday gabadha. Ninku wuxuu dhahay anaa ku geynayo dib ma lahan oo na keen. Intay soo baxeen ayaa yeydiina waxay ka baxday wado kale oo ka dhow guriga ayadeeda. Waxayna bilowday inay garaacdo albaabka. Albaabka markuu garaacay waxa uu maqlay dhawaq ku dhahaya yaa waay qofkii albaabka soo garaacayo. Yeygii ayaa intuu isku yeelay codkii gabadhii oo kale ayuu wuxuu ku dhahay gabadhaadii waayay waxaan ku keenay daawo direen iyo buskudka. Markaas ayay waxay ku tiri soo gal gabadheedii, albaabku wuu furan yahay. Yeydii markaas wuu qoslay. Markaas albaabka oo furay si dhaqsi leh ayuu ku galay guriga. Wax yar kadibna waxaa soo muuqday gabadhii iyo ninka ugaarsada oo keenta joogay. Wuxuu ninka ku dhahay si dhaqsi leh guriga u gal, meeshan halisteedu way badan tahay. Gabadhii way dhool cadeysay. Kadib ninkii wuxuu bilaabay inuu iska tago oo howshiisa guda galo. Kadib gabadhii garbasaar guduudneed ayaa waxay bilowday inay albaabka garaacdo. Dhawaq ayaa ka soo yeeray gudaha. Waxaa la dhahay yaa waaye. Gabadhii ayaa waxa ay tiri ayay gabadhaada garbasaar guduudneed waaye. Yeydii ayaa soo hadashay. Waxay dhahday albaabku wuu furan yahay, soo gal adigoo mahadsan gabadheedii. Gabadhii iyadoo kala bilaweynaysa inay gasho oo ay ka shakinaysa codka ay maqashay inuu ayadeeda iyo in kale ayay istaagtay. Hal mar waxay isweydiisay maxaa waa codka iyada maxaa ku dhahay. Waxay isdhacday markaas ayada in markay xanuunsatay ayay codka sidaas isku bedelmaynay wax kalmaan. Sidaas ayay isku tiri gabadha.
laakiin sidaas maysan ahayn. Markaas waxay bilowday inay soo gasho guriga. Yeygii wuxuu ahaa mid xirtay dharta ayeeyada oo dhan. Wuxuu ahaa mid kastay oo kiyaalka, haddana seexday sariirta ayeeyada. Yeygii waxa uu sameeyay qolka dhan daaqadaha dariishada ku daboolay si aysan u fahmin gabadha oo aysan ka shakinin. Markaas wuxuu ku dhahay yeyga, waa mahadsantahay gabadheedii, halkan intaasoo masaafo aad soo jartay imaata si aad igu soo booqato. Kaalay gabadha ii soo dhawow. Ayeeyadii yeygii dhahay. Gabadhii intee soo dhawowday, haddana way soo dhawowday. Intee ka shakisay salada hal mar ulka iska dhigtay. Laakiin ma aysan u dhawaanin sariirta, waayo waxay dareemtay in ayeeyadeeda aad isku bedeshay oo sidii hore aysan ahayn. Markaas waxay weydiisay gabadheeda, maxaa gacmaha sidan ugu weyn yihiin? Yeeyda ayaa xog jawaabtay si aan hab ku siiyo. Gabadhii ayaa ku dhahday, maxaa dhagaha sidan ugu dheeriyin? Yeeyda ayaa waxay tiri si aan soo fiican ku maqlo. Sidoo kale gabadhii intee shakisay wax ku dhahday, maxay indhaha sidan ugu weyn yihiin? Waxay ku dhahday, waxay ugu weyn yihiin sidan adiga soo fiican ku arko. Gabadhii intee ka shakisay dad si weydiisay, maxay ilkaha sidan ugu weyn yihiin? Yeeyda ayaa si xoog leh uga jawaabtay codkeeda, si aan adiga ku cuno caloosheeda ku giriyo intaas. Markaas oo qoslay, markaasay dareentay gabadha inaysan ayeeyadeeda ahayn, waxayna bilowday inay qayliso. Yeeydiina waxay bilowday inay ku soo duufto, waxay barabtay inay gabadhii cunto. Markaasay gabadha dharka oo dhan inta isku siiyay gabadha markii way qaylisay, i badbaadiya war meesha joogo. Markaasna codkii gabadha waxaa maqlay ninkii ugaarsada ahaa, wuxuuna u soo laabtay u soo degdegay gurigii ayeeyada. Ilbaakan waa u furnaa, waana u fududeed inuu madaxa ka dhufto. Kadib markaas wuxuu badbaadiyay gabadhii ayeeyadeeda, wuxuuna bilaabay inuu dawacad ayeeyada caloosheeda jeexo si uu ugu soo saaro ayeeyada. Waa uuna ka soo saaray. Ayeeyadiina waxa uu mahad celisay ninkii ugaarsada ah, iyo gabadhiina waxay u mahad celisay ninka. Wuxuuna dhahay, waxaas waajibkeyga, wax aan waajibkeyga inaad igu mahad celisaanna maahan. Wuxuuna dhahay, waxay hooyadaada ku dhahdaa iska intirin mar dambe, talada hooyada ay ku siisana qaado. Kadib gabadhii iyo ayeeyada waxay bilaabeen inay cunto buskudkii u geentay gabadheedii garbasaar gaduudneed iyo inay cabto daawo direentii. Gabadh ayeeyad ayaa isla markii caafimaatay. Markaasay gabadhii ayaa ayeeyadeed waxay ka ballan qaaday inaysan mar dambe la qiyaami doonin. Hab ayayna ista siiyeen. Gabadhiina iyadoo faraxsan oo aad u faraxsan ayay way soo baxday. Waxayna rabtay inay aado guriga hooyadeeda. Wadadii waxay ku aragtay yeeydii khiyaantay. Ninkii ugaarsada ahaa wuxuuna qaabay inuu keentii dhan nadiifiyo. Gabadhiina waa u xanaaqsaneed. Yeeydiina waa ay ka qoomamaysay, maxaa yeelay waa la ciqaabay. Gabadhiina iyadoo faraxsan oo aad u faraxsan ayay gurigeeda iska aaday. Intaas ayay ku ogtahay qisada. Channel-ka subscribe saar si uu ku soo gaaro muuqaalka xiga. Channel-ka magaciisana waa Ubax Xuseen. Gambalaalkana ku dhufo si uu ku soo gaaro muuqaalka aan soo dhigno maalinlaha. Bye bye.